Asalaamu calaykum daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaanba waxaa ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono Saciid Sama Ibrahim oo ku magac dheer Google. Saciid waa mutacallin ku nool magaalada Melbourne oo ku takhasusay arrimaha amniga iyo horumarinta caalamiga. سعيد wuxuu dhawaan dabagal iyo baaritaano ku sameeyay arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka Soomaaliya. Saciid magacaygu waa Maxamed ila soco waxaad ku soo dhawaataa Madalay Studio. Mahadsan tahay waan dhawahay. Saciid marka ugu horeyso waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo baaritaankan iyo reportkan aad samaysay bal anigii daawadayaasha wax ma nooga sheegi kartaa? Reportka waa run ugu jira waa report ka kooban ilaa 25 page sidoo kale sida aad ka arki karto wuxuu wataa ilaa 22 slide oo PowerPoint presentation ah. Inkastoo reportkii aan hadda dhameeyay laakiin weli publish ma gelin oo lama soo publish karayn. Reportkan wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliya gaar ahaan wuxuu ku saabsan yahay cilmi baarista marka aad aragto waxay wadataa qayb recommendation oo ah in xafiiska madaxweynaha af Soomaaliya hadaan u bedelo ah xafiiska madaxweynaha in loo bedelo xafiiska madaxa dadweynaha oo ah proposal model presidential proposal model wax la yiraahdo. waa tahay Saciidow su'aasheeda labaad maxaa kugu kalifay ama kugu dhaliyay inaad baaritaano ama dabagallo aad ku samayso siyaasadda ama arrimaha Soomaaliya? Reportyo badan oo Soomaaliya state-keeda iyo maaragtay security-keeda aan ka qoray oo ku saabsan waxbarashadeedii baa jira. Laakiin reportkan wuxuu uga duwan yahay waa report u gaar ah oo aniga gaar ahaan aan doontay in aan raadiyo xal ka turjumaya Soomaaliya in xalkeeda ayada ay maaragtay ma la heli karaa wax loo yaqaano tailored democracy system of Somalia. maaragtay Soomaaliya doorasho democracy Soomaaliya loo tailor-gareeyay ama loo ayada loogu talagalay oo ay leedahay oo Soomaaliya ay samaysanayso. Marka arrintaas aan ka soo bilaabay ilaa before waqtiga gumaystihii xilligii dawladdii after gumaystaha la dhisay ilaa maxay ahayd military systemkii after military system iyo collapse state-kii conflict-kii civil war-kii tribe war iyo wixii loo yaqaanay terrorism and maaragtay argagixisada iyo waxyaalahan dagaaladii ilaa hadda lagu joogo even wixii hadda dhacay 19 February 2021 ilaa halkaas reportkaygu maanta uu ka turjumayaa. waxaan haystaa reportkayga waxa la socda almost 10 pages of recommendation oo arrinta ugu muhiimsan ah oo ah new inay Soomaaliya u baahantay new presidential model. waa tahay Saciidow adiga oo hoos u sii daadagaya baaritaankan aad samaysay maxay tahay faa'iidada ama xalka uu keeni karo ama danta ugu jirta dalka iyo dalka muxuuse ka hortagi karaa? waa runta waa su'aal fiican. Soomaaliya ilaa 60kii waqtiga state Republic of Somalia la sameeyay ilaa hadda waxaa jira wax la yiraahdo Office of President xafiiska madaxweynaha. awooddu uu lahaa xafiiskaas waxa ay ku wareegtay militarigii xafiiskii laftigiisii ayuu inta militarigii la dhexgeeyay baa la yiraahdaa xafiiskii madaxweynaha oo dadka aysan soo dooranayn laakiin militarigii xataa xafiiskii madaxweynaha iyo awooddii madaxweynaha uu lahaa ayay weli isticmaaleen. ayadii waa duntay Soomaaliya waa isdagaashay waa kala tagtay ayadoon xafiiskii madaxweynaha reform lagu sameyn ayaa wax kale lagu dul dhisay oo la yiraahdo federal system oo grassroots-ka laga keenin Soomaalida oo kor looga keenay oo mararka qaarkood aad moodo in dalka uu sii burburinayo iyo xafiisyo kale ah
prime minister, deputy prime minister iyo madaxweyneyaal gobol, taas oo arrinta uga sii dartay. marka aniga reportkaygu wuxuu leeyahay Soomaaliya waxay rabtaa federal oo regional level ah, 18 gobol kasta in uu noqdo state member of Somalia. xafiiska madaxweynaha awoodda uu hadda leeyahay oo dowladda dhexe ahna in ay sidiis u sii jirto hadiiba aan la sii weynin, but ay noqoto rotational presidential system with a 5-member oo waxaan ugu yeeray board of the people ama madaxa dadweynaha, 5 nin oo isku 5 qof oo isku power ah in ay maaragtay ay awoodda wada qabtaan. sanadkiina uu mid ka mid ah uu represented gareeyo Soomaaliya international level, 5 sanana ay saa ku wada dhammaystaan oo mar labaad election la aado. arrintaasna waxa weeye waa haddii loo baahdo reportka qofkii akhriya ayaa fahmi doono faahfaahinteeda. hagaag Saciidow, baaritaankan ama dabagalkan aad samaysay ma wuxuu kaliya ku saabsan yahay xafiiska madaxweynaha awoodiisa in la qaybiyo? kaliya maahan, wuxuu saarayaa in 18 gobol walba la madax banaaneeyo oo asaga doorashadiisa toos u aado oo arrimaha federal state ahaan oo gobol kasta uusan gobol kale ku tiirsanaan uu gaar u hormaro. dowladda dhexe inay noqoto parliamentary system oo ama xisbiyo xiran oo sida 3 xisbi example aan ku siiyo, haddii la aado 1 man 1 vote 3 xisbi oo 3 xisbiyo xiran ah haddii lagu aado, dadku waxay soo dooranayaan qofka raba inuu madaxweynaha ama memberkaas uu galo 5 qof oo head of state ka xafiiska madaxweynaha inuu noqdo qofka raba waa in constituency level laga soo doorto oo horta baarlamaan uu soo noqda. markuu baarlamaanka soo noqdo, baarlamaankii ayaa waxay dooranayaan head of state oo ka kooban 5 qof. 5 qof waa isku awood, laakiin qofba 12 bilood ayuu wuxuu leeyahay 2 shaqo kaliya. mid waxay tahay inuu keeno proposalka ama soo jeedin hawlaha shaqada sanadkaas. midda kalena representation of state into international level, inuu Soomaaliya ku matalo arrimaha state affairska inuu Soomaaliya ku matalo. laakiin markuu rabo in arrin go'aan wax laga gaaro waa inay 5tooda cod geliyaan oo isku raacaan ama 2 ama 3 ama 4 waxay noqoto oo aqlabiyad ah. 5tooda of course baarlamaanka ka yimaadeen. haddaas waxa meesha ka baxaysa waxa la yiraahdo regional ama international interference Soomaaliya lagu hayay waligeed meesha ka baxay because qof shakhsi oo la wato meesha ma imaanayo oo qof horta deegaan laga soo doortay. markii deegaan laga soo doortana baarlamaanka u doortay, markuu baarlamaanka doortana 5 qof oo kale 4 qof oo kale ay waxay wadaag ku yihiin awoodii ay cod inay wax ku wada qabtaan ay tahay. example haddaan ku siiyo arrinta hadda jirto oo kale, example madaxweynihii Soomaaliya oo 5 ka mid ah oo represent gareynaya Soomaaliya sanadkaas ayaa Sacuudiga aaday. waxay Sacuudiga ka codsadeen in ay siiyaan ciidamo contribution ama ciidamo ay siiyaan Sacuudiga somehow maybe Yemen ama meel kale ka dagaalgala. arrintaa go'aan kama gaari karo, waa inuu ku soo noqdaa 4tii kale uu arrintaas soo jeediyaa, ay cod geliyaan, ay isku raacaan. marka isku raacaan haddana inay baarlamaankii marsiiyaan, markaas ayay Soomaaliya ciidan u diri kartaa. midda kale ay sahlayso waxay tahay 5tan waxay ku xiran tahay qofka siduu baarlamaanka dhexdiisa ama xisbigiisa dhexdiisa uu iskaga galo ee kuma xirno qabiilka. 5 qabiil waxaa iyadoo 5 qabiil hadda 4.5 wax loo qaybsado, 5 qabiilba waxaa laga yaabaa in qabiilo ayba helinba inay tartami karaan. laakiin hadda markay sidaan dhacdo waxay noqon kartaa qof walba oo Soomaaliya ama gabar kasta walba ama wiil walba inay tartamaan. sababtaas weeye sababta keeni karta in dadka hubka laga dhigo, institutionskan u xoogeystaan,
judiciarygeena independence ay noqdaan, awoodda militariga iyo intelligencegeenuna uu noqdo also independent. Marka taas weeye tay ku qotonto waxa la yiraahdo board of the people oo 5 qof ka kooban oo isku awood ah in ay Soomaaliya maaragtay xafiiska madaxweynaha, xafiiska madaxa dadweynaha ay maamulaan. dad badan oo na daawanaya ayaa laga yaabaa inay hadalkaaga u fahmaan inaa Soomaaliya u samaysay 5 madaxweyne meeshii ay lahaan jirtay 1 madaxweyne. marka waxaa soo lagama yaabo in iska qabsigii iyo murankii taagnaa in uu sii kordho maadaama 5 madaxweyne aad Soomaaliya u samaysay. waa su'aasha ugu muhiimsan inay dadku fahmaan. macnaheedu maaha 5 madaxweyne, macnaheedu waxa weeye 5 awood awood sharing 5 ah oo hal awood ah. macnaheedu waxay tahay xafiisyada aan kugu noqdo dowladdii militariga Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee wuxuu sameeyay arrintan markaan baarayo waxaan ogaaday in uu sameeyay laakiin uu in yar oo arrintaas sida hadda aniga baaritaankayga ku cad uusan u samaynin. wuxuu sameeyay 5 golaha sare oo waddanka maamuleysay absolutely was right, but 5tooda isku awood ma ahayn. hadday 5tooda isku awood ahaayeen dagaalkii aan galnay oo Ethiopia aan galnay was not right time. waxaa laga yaabaa maanta Somali regional in Ethiopia maanta waxaa laga yaabaa inuu ama xor ahaan lahaa dal xor ah ama uu ahaan lahaa dal Soomaali ka tirsan. laakiin waxaan qabaa waqtigaas ma ahayn waqti Soomaali ay gali kartay dagaalkaas. 2 markii la galay dagaalka in aan la sii gelin oo intii la qabsaday gobolka lagu ekaado oo la raadiyo wada hadal ayadoo gudaha lagu jiro. rag badan baa soo jeediyay hadday 5 golaha sare isku awood ahaan lahaayeen arrintaas lagu guuleysana. 3 waxaan kaloo helay hadday 5taasi isku awood ahaan lahaayeen oysan ahayn wax uu asaga rabo in ay dhinaceeda u waday oo aysan ka hor imaanayn ay ka hor imaan lahaayeen waxa uu madaxweynuhu mararka qaarkood uu ku qaldamo. waxaa dhici lahayd xataa markii la guul daraystay in madaxweynuhu uu ka dego 5tooda rotate bay ahaan lahayd uu qof kale hogaamiyo. taas macnaheeda waxay meesha keentay wixii Soomaaliya ay ku feelgarowday. laakiin arrinta ah inuu 5 golo sare dhiso waxay ahayd arrin sax ah. anigu waa 5tii laakiin waa isku awood. waa 5tii oo ah xafiiska madaxa dadweynaha waa isku awood. wax isku awood ha ahaadaan laakiin qof kasta oo 5 sano oo mandate haystaan 5 sano sanad walba qof ayaa hogaaminaya 5tooda. qofka kale powerka go'aan ka gaarista arrimaha masiiriga buu kaliya leeyahay maahan hogaaminta. haddii sanadka uu dhamaysto baarlamaankii ayaga doortay ayaa sanadkaas uu khudbad ka jeedinaya ceremonial waxa la yiraahdaa ceremonial event baarlamaanku qabanaya kala wareejin ah oo qofkii labaad uu ku guurayo asna wuxuu galayaa linekii 4 level 4 ayuu tagayaa qofkii ka degay. haddii ay mar labaad qof uu tartamo oo electionka kale after 5 years uu ku soo noqdo 5tan ku jiray only wuxuu ku soo noqon karaa 1 more term. macnaheedu wuxuu yahay hal mar oo kale ayuu ku soo noqon karaa qofka. waxaana laga yaabaa in 2 qof soo noqoto in 3 soo noqdo in dadku qaar waxay isweydiin karaan sidee xisbiyo iyo arrintan iskula maaragtay falgali kartaa. su-aasha aan u malaynayo dadka qaar inay isweydiin karaan inay taas tahay. 3 xisbi inuu waddanka jiro ka soo qaad. xisbiga ugu aqlabiyadda badan sax oo lambarka la rabo hadduu helo uu ku soo dhisi kara 5taba asagu baarlamaanka waxa weeye asagaa markaa qabanayo. of course gobollo kala duwan buu codkii ka helay, qabiilo kala duwan baa ka soo galay, dad kala duwan baa uu xisbigii ka mid ah. marka asaga ayaa oo sidaas ah ayaa qabanaya 5tii oo afkaartii asaga uu watay
laakiin still shantii qof baa waxay tagaan meesha hadduu waayo aqlabiyadda numberka la rabo inuu ku hogaamiyo dalka wuxuu ku qasban yahay inuu xisbiga saddexaad oo ugu numberka yar uu coalition la noqdo uu yiraahdo okay wada hadal maybe shanta member shanta 5 memberka mid baa in siinaya laba in siinayna dawlad wadaag baa in siinayna waxyaalaha idinku priority-ga inay ah sida maybe whatever policy-gooda ah baan wax ka qabanayna marka shanta waxa laga yaabaa xisbiga ugu tirada yaraa iyo xisbiga ugu tirada badnaa inay markaa form gareeyaan xisbiga saddexaad oo tirada labaad ku jiray marka loo fiiriyo saddexda xisbina uu noqdo oppositionka wadanka marka saas uu la fargeli karaa hadday xisbiyo noqoto haddii hadda intaan xisbiyada la gaarin ee arrinta aan ku jirna ah maaragtay kind of selection waygana waa arrinta ugu fudud baarlamaankii baa lasoo select garaynayaa markii lasoo select gareeyo baarlamaankii ayaa ayagana waxay dooranayaan shantan marka la sameeyo hadda waxaa ogsoontaa waxaa dhici karta qof Soomaaliya oo jooga gobol inuu dareemo inuu less citizen yahay ama muwaadinimadiisu ay ka hooseyso qof kale oo gobolka jooga arrintaas waxa weeye in annaga lanooga baahan yahay in arrintaa ka hortagna inay dhacaan midda kale aan reportkan uu meesha ka saaray markii shantan la dhisay waxa weeye dawlad goboleedyada hadda say u dhisan yihiin waxaa la rabaa dawlad goboleedku inuu noqdo federal member of states or regional level on ahayn waxa sidoo hadda u dhisan yahay example waxa laga yaabaa in ay Boosaaso bari iyo shabeellaha hoose ay arrin isku afgartaan aysan isku afgaranaynin maxaa la yiraahdaa Sanaag iyo bari marka waxa la rabaa gobol walba wuxuu noqonayaa member of federal oo asagu is dooranaya oo maayarkiisa iyo councilkiisa asagu dooranaya aan loo soo magacaabin maxay ahaytoy aan laga soo magacaabin dawladda dhexe midda kale oo arrintan ay keenayso waxay tahay judiciary-geena independence uu noqonaya judiciary-geena wuxuu noqonayaa in marka judiciary-ga la soo magacaabo in judiciary-ga baarlamaanka la mariyo judiciary-geena xataa uu noqdo ayagana council of judiciary system camal oo ama 9 ama 5 ayaguna ay noqdaan 3 hadday 5 noqdaan 3 oo maxay ahaytoy mandate oo maybe every 10 years la doorto iyo 2 permanent hadday 9 noqdaan 4 permanent iyo 5 la doorto to baarlamaankana ay maraan arrinta aan hadda ka hadlayno waxay tahay vice president ma jirayo deputy prime minister ma jirayo prime minister ma jirayo sida ogsoonta xilligii la form gareeyay office of prime minister ilaa hadda mar walba madaxweynayaashu is qabanayeen madaxweynaha ugu yar 2 prime minister buu soo magacaabay waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne kastana waxa weeye prime ministerka oo is qabanayeen marka ay is qabtaan madaxweynuhu ma baxo that is the reason arrinta in la fiiriyo mar labaad ay tahay wax ku saaray arrintan ayaga cod ayay ku kala baxayaan midda kale ayagu waa isku awood haddii ayagu is qabtaan baarlamaankii ma la dhahayo dawlad goboleedyadii iyo dawladdii dhexe is qabtay oo kala maqan oo kala xiran ma aan dadkani waa parliamentarian through the xisbi or whatever markii baarlamaankii ayaga soo doortay ayaa jooga oo sameynaya in uu baarlamaanku awoodda kala noqon karo shantoodaba awooddu kala wada noqon karaa hadduu u baahdo qayb kamida shakhsi kamida intuu u yeero oo fitting ku sameeyo oo baaritaan ku sameeyo ayuu wuxuu ku sameyn karaa awood kala noqosho shakhsi kamida memberkaas markaasuu xildhibaan noqonaya shakhsigii markaasaa la dooranaya shakhsi kale marka ayaga sidooda waxay ku shaqeynayaan waxa waaye memberkan qofka horta sanadka hogaaminaya ayaa iskale proposalka hadduu proposalkiisa asaga ayay awoodiisa tahay inuu keeno miiska in uu ka dhaadhiciyo proposalka hirgalana waxaa laga rabaa in uu u yeesho wada shaqayn afarta kale uu at least xulafo ka samaysan karo of course haddii xisbiyo lagu soo galay isku hadaf ayaa leeyahay marka xisbigu wuxuu yahay hoggaan isku hadafna waa leeyahay marka qofka hadduu meel ku dhego
waxa weeye waa in laga dhaadhiciyaa oo ay sameeyaan codka hadday 4-1-3-2 u dhaco waa fine hadday isku sii qabsadaanna baarlamaanka isla tegayaan waa sidaas shantan qof ee aad sheegtay xaggee bay ka imaanayaan qaabkeesa lagu soo dooranayaa midda kale waxaad ka dhawaajisay qabaa'il walba oo Soomaaliya ka tirsan in ay ka qayb qaadan karaan hogaaminta ilaa heer madaxweyne taana sidee bay ku suurtageli kartaa reportka haddaa akhriso ama presentationkayga aad fiiriso slideskiisa macluumaadkaas ayagoo cilmiyeysan baad ka helaysaa waxa weeye marka proposalka uu hirgelayo of course waxaa jiraya waxa la yidhaha protocol iyo guideline qofka noqonaya waa qof nooceeya waa aqoontu maxay tahay qofka uu aqoon nooceeyu yeelanaya da nooceeyu noqonaya caafimaadkiisa iyo shuruudo noocaasa lagu xiraa oo haddaba shuruudaha madaxweyne lagu xiro ayaa qofka lagu xiri doonaa dabcan arrinta ah qabaa'ilka iyo siday ula falgelaysaa waa kow arrintan waxay keenaysaa in ay noqoto meel hadda dhibaatada lagu qabo oo ah qabiilada markaa fiiriso waxaa laga yaabaa qofka inuu yiraahdo qabiil hebel baa maanta madaxweyne ah laakiin ma ahan qabiilku wax uu ku matalo ama qabiilku u doortay ama qabiilku u dirsaday ma aha waa sheeko elite-ka dhexdiisa uun ka shaqaynaysa arrintan waxay samayn kartaa qofku markuu baarlamaanka yimaado hadda sida dadku u jiraan marka xasan sheekh iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynihii hore xasan sheekh example haddaan ku siiyo hadday member yihiin oo iska sharaxaan waa inay horta marka hore constituency laga soo doortaa oo baarlamaanka uu ka soo geli karaa degmo hoosaad xildhibaan ah waa inuu horta soo noqon karaa so meeshaas horta wuxuu la gelayaa marka hore dad badan oo isku deegaan yihiin ayuu qorta inuu uu la tartamo ay tahay marka waxaaba dhici kartaba ninka inuusan la soo bixinba qof lacag badan iyo dowlado shisheeye watay inuusan soo bixin markuu yimaado hadduu soo baxana baarlamaankii dhexdiisii ayuu wuxuu ku qasbaya inuu kula tartamo asagoon beeshiisa jufadiisa keliya sabkaraankiisa aan ahayn inuu kula tartamo xataa qabiilkiisa kale ee ambareelada kore oo dhan ahaa oo waxa laga yaabaa nin habargidira iyo nin abgaale iyo nin jajeela iyo nin baadacta iyo so on sabkalaaniskaas oo dhan inay ku tartamaan kursiga is up to the parliament qofkay marka xisbiga qofkay u doortaan inuu noqdo madaxa dadweynaha golaha madaxa dadweynaha inuu galo asay ku xiran tahay marka taas waxay samaynaysaa marka inay meesha ka saarto in international and regional interference because qofkii xildhibaan baa la soo dooranaya lama oga qofka madaxweyne noqonaya baarlamaankii markuu yimaadana waxa la dooranayaa maxay ahaytoy 5 members 5 memberkii marka hadduu xataa ka mid noqdo haddana 5 memberkii baa awoodii ay sheeran markay ogaadaan wadamada ama dalalka ama institutionska inaad model noocaas oo adag haysato they will stop interfering you because they maba heli karaan awood ay kugu dhex galaan because adaa marka hore waxaad dejisatay shuruuc adag oo arrintaas lagu soo faragelin karin waa hagaag nidaamkan ama mid la mida ma jiraa adduunyada meel laga dhaqan geliyey ama waddan oo ka shaqeeyo researchka markaa sameynayay of course waxay wadamo ku dhaqmo way jiraan laakiin waddan walba wuxuu ugu dhaqmaa sida markaas asaga dhibaatadiisa ama maaragtay ka xalinaysa ama ka hortagaysa nolosha dadkiisana horumarinaysa oo dadkiisa isku haynaysa Nigeria ayaa ka mid ah waxay lahay rotate wax la yiraahdo zone system oo southka iyo northka presidentialka inuu maaragtay uu hadba dhinac ka yimaado oo rotational presidential system ay lahaadaan waxa ka mid ah oo very unique ayagana u isticmaal arrintan oo almost many decades intaasoo sano xisbiga hogaaminaya Mexico
lixdii sanaba inuu noqdo rotational president oo lixdii sanaba hal madaxweyne uu hogaamiyo oo hal xisbi oo dadkoo dhan ka kooban yahay oo laakiin la meertaysanayo madaxweynaha waxaa ka mid ah European Union sida ogtahay ayagana rotational state level oo state ba inuu mar qabto madaxweynaha Switzerland baa ka mid ah oo sida ku salaysan sida maaragtay 5 gobol walba uu soo dirsado madaxweynihiisa markaas isla shaqeeyaan oo u soo dhow formulada hadda aniga aan sameeyay xoogaa in badan tan Switzerland oo kala systemka Switzerland uu yahay laakiin aniga taas waxaan uga sii gudbay of course waxbaa ka qaadanaysa waxbaa ka baranaysa laakiin waa in more arrintan ay ka turjumayso wax xallinaya oo Soomaalida ka saaraya dhibaatada oo geynaya nolol kalsooni la isku qabo oo la is aaminsan yahay oo hubka dhigista lagu sameeyo oo xuduudaha lagu sugo oo institutionada la dhisto nolol geynaysa weeye arrintaas marka wadamo badan baa jira researchka iyo baaritaanka reportkana qofkii akhrista uu ka heli karo oo uu si meelahan ka keenay qaarkood baaritaankayga uu ka yimid uu ka ogaan karo waa tahay Saciidow baaritaankan aad samaysay xagee buu ka taagan yahay muxuuse ka aaminsan yahay nidaamka ka jira Soomaaliya ee loo yaqaano 4.5 wuxuu ka qabaa uu ka hor imaanaya proposalkayga aniga 5 major principal clan waa 5 aniga 5taasna sub clans bay leeyihiin sidaas uu weeye proposalkayga aniga wax ku cad wax la yiraahdo 0.5 kuma cadda waxa ku cad afarta beelood iyo beesha shanaad by the way aniga waxaan u tixgelinayaa beel waxaa ugu yeerayaa wax kasta oo dadaho isku tagay oo ayagu u doorta arrimahooda inay ka wada tashadaan oo arrimahooda wada xalistaan waxaas waa inaan arrintaas beeltaa ugu yeernaa oon ka baxnaa waxa kale maxaa yeelay beesha shanaad waa beelaha ka mid ah marka proposalkayga waa 5 principle 5toodana subclans inay kala leeyihiin qof kastaana uu xor yahay principle ahaan beesha aad ka soo galayso main tribe-kaaga hadduu beesha shanaad yahay iyo hadduu yahay beesha daarood ama beesha hawiye ama beesha direed ama beesha digleed mirifle macna samayn mayso qof Soomaaliya tahay beesha shanaad baana principle-kaagu qof Soomaaliya tahay subclan-kaagu waa kaas beesha sana waa tahay macna kala samayn mayso region-ka doontaa degi kartaa region-ka doontaa ka soo geli kartaa laakiin muhiimaddu waxa weeye in hal 5tan proposal markay soo galayaan of course taas waxay noqonaysaa protocolka oo ah in principal main tribe-ka hadduu one member of the uu galo most likely should not be the next one inuu noqdo another one so 5tooduba ay saas noqdaan waxaaba dhici kartaba 5ta beeloodba inay kala noqdaan 5ta qof taas waxay ku xiran tahay sida hadday ku darsadaan maxay ahayd protocolka qofka lagu dooranayo oo example kursiga haddii uu qof galo oo aad isku main ahaydeen isku beesha weyn iskula jirteen in la siiyo fursad qolada kale inay is sharaxaan Saciidow sidaan ogsoonahay waxaa jiro maamul goboleedyo ama dowlad goboleedyo baaritaankaagana waxaad moodaa inuu lid ku yahay ama burburinayo dowlad goboleedyada qaabka ay u dhisan yihiin marka arrintaas ayada maxaa ka leedahay waa run isteediyadu horta waa inay noqdaan gobol 18 gobol kasta waa inuu noqdo inuu yahay xubin federaal ah oo dowladda ka tirsan taas waxay keenaysaa in gobol awoodeed uu noqdo oo awooddiisu ay noqoto awood goboleed ma dhici doonto in uu farageliyo arrimaha
foreign affairska, aviationka, financeka, iyo maxay ahaytoy waxa loo yaqaano securityga, maaragtay waxa la yiraahdo border security ama defense kore. gobolka wuxuu madax bannaan yahay arrimaha social services iyo policing, internal policing waxa loo yaqaano booliiska gudaha gobolka iyo social services. waxaanay dooranayaan councilkooda ayaa waxay dooranayaan premierka ama mayorka ayaga xukumaya, madaxweyne ma laha. an awoodii ahayd in dowlad wax camal ah oo independent ah meel laga dhiso ma jirayso. 5 qof oo dalka xukumaysa waxay baarlamaan bay marayaan, baarlamaankii baa maaragtay sii dhisaya, halkaasay fadhinayaan. hadday ayaga isku dhexyaac ka dhacana wax gobolada dhibaato soo gaaraysa ma jirto, ayaga cod isku xalinaya. hadday cod isku xalin waayaan baarlamaankii ayaga doortay ayaa jooga dhaqso bedeli kara dhibaatada hadda jirta oo ah in shakhsi intuu meel xoog ku qabsado oo asaga militarization uu sameeyo oo military ciidan iyo equipment samaysto uu meel joogo oo uusan gobolkii la deriska mararka qaarkood annagii dhexdeena waxaan isku samaynaynaa wax la yiraahdo invasion. waxa meeqa jeer ba aragtay gobol ku duwa. how many times happen gobolkan oo gobolkii kala dagaal ka socdo ma dhacayso. military ma jiro. militarigu wuxuu degayaa gobol kasta meeshii uga baahan yahay degayaa, laakiin militariga waxaa xukumaya dowladda dhexe. ayaga waxay yeelanayaan police local ah oo aan shuqul ku lahayn wax federal bodies ama airports ama dekadaha meelahaas waxaa ilaashanaysa dowladda federaalka. haddii dadku ku qanacsanaan lahaayeen arrinta inay qabiilka iyo waxaan ka dhex arkaan, awooddii Soomaaliya 5 qof oo kala duwan baa wada haysa. marka dhibaato ma yeelanayso. 18 gobolkana looma soo magacaabayo qofka xukumaya. that's what the federal is. budgetka gobolka la siinayo canshuurta waxa weeye arrinta kaliya ku midoobi karto in hal qasnada ay ku dhacdo oo dowladda dhexe ay qaato, budgetkana la akhriyo, gobol walbana wax la siiyo sanduuqiisa gaarka loogu shubo. so gobolka hadda waxa laga yaabaa 3 gobol ama 2 gobol ama 2 gobol iyo bar inta la isku xiray in ay hal magaalo dad elite ah fadhiyaan oo ay maamulayaan. sidaas ma dhici doonto. gobol walba waxa dhici doonto inuu helo fundiskiisa gaar oo asagu hormaro. arrintan waxa waaye waa council camal, ma ahan individual body. marka maadaama aysan individual ahayn oo hal qof oo madaxweyne uusan ahayn, gabdhuhu way ku jiri karaan sida baarlamaankaba ay ugu jiraan, sida golaha wasiirada ay ugu jiraan, golaha madaxa dadweynaha gabdhuhu way ku jiri karaan. marka waxa laga yaabaa 2 gabdhood oo golaha madaxa dadweynaha ku jira, maadaama decisionkii fundamentalka ah aysan keligeed go'aan gaari karin oo 3 nin oo kale ama 4 nin oo kale ay go'aan la gaarayso, of course kama duwana golaha baarlamaanka, golaha wasiirada, golaha madaxa dadweynaha. marka arrintaas waxa weeye maadaama arrintii ay tahay mas'uuliyad wadareed, xafiis mas'uuliyad wadareeda oo la isla hayo, ma dhacayso in maxay ahayto. haddii si loo fiiriyo waa dowlad goboleedyadii oo la isku keenay xafiis oo aan kala jabi karin. waa tahay Saciidow, nidaamkan aad hadda wado ma la shaqayn karaa doorasho qof iyo coda ama doorasho dadban oo midda hadda la isticmaalo ah, mase haddii loo gudbo doorasho xisbi ayadana wuu la shaqaynayaayo kama hor imaanayo? systemkan wuxuu la falgeli karaa arrinta haddeer doorashada dadban. baarlamaankii ayaa selection lagu soo samaynayaa sida hadda dhacda oo dad kooban ay gobolada ka soo dooranayaan. baarlamaanka markuu guddigiisa doorto guddoonkana oo guddoonku baarlamaanka la doortana asagaa dooranaya, baarlamaankii dhexdiisa laga dooranaya
maxay ahayd muhiimadda waxa weeye qof kastoo ku haminaya inuu noqdo shanta madaxa dadweynaha ee head of state-ka Soomaaliya inuu galo maaragtay Federal Republic of Somalia waa in uu xildhibaan soo noqda shuruudda koobaad weeye adoo xildhibaan soo noqonin ma imaan kartid maxay ahayd doorashada marka taas weeye hadday proposalka la qaato uu la falgeli karaa saas aynu ku dooran karaan shantooda markay yimaadaan gobolladii iyo arrimihii laga rabay hagaajin karaan of course haddii baa la yiraahdo hala doorto xildhibaanada hala soo doorto oo xildhibaano oo xisbiyeysnayn la doortana waxa weeye markay isku yimaadaan bay iska dhex dooran karaan most likely haddii xildhibaano la aadayo oo weeda doorasho la aadayo xildhibaano parliament system mostly waxaan u malaynayaa in parliament system weeye arrinteena hadda mar walba waxay noqonaysaa in xisbiyo lagu galo marka marba haddii la isla ogolayaa inay 5 qof awoodda Soomaaliya isla haynayso oo isku awood ah oo cod dheeri wax ku maamulaysa haddii ay dhacayso way sahlanaanaysaa waxaan kale tensionkan kale wuu yaraanayaa baqdintan kale way yaraanaysaa oo la kala qabo awoodaheena kale institutionskeena kale ciidamada iyo xuduudaha iyo judiciaryga iyo security-kana waa noo dhismaaya waa tahay Saciid aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ee aadna siisay intaan barnaamijka soo gabagabayn baladaan ku siinayaa hadalka ugu dambeeya maxaad oran lahayd dadka waxaan soo jeedin lahaa maadaama horta uu English ku qoran yahay waxaan rajaynayaa in aan Soomaali u bedelo haddii duruufta ay saamaxdo in ay akhriyaan PowerPoint presentationka oo asagoo researchka uu ku jiro reportkana insha Allah markay suurto gasho oo publisher aan helo in aan soo publish gareeyo oo ay si fiican u akhriyaan maxaa yeelay markaasaad fahmi kartaa macluumaadka oo faahfaahsan dadka wixii su'aal ka qaba ama haya fikradan oo kale la mid ah ama isdhihi kara waxaa jirta in arrintan wax lagu dul dhisi karo waxaan rajaynayaa inay nala soo xiriiraan si ay noola shaqeeyaan oo proposalka ayaga laftigooda contributionkooda inta u sameeyaan ay soo saaraan wax Soomaaliya xalkeeda oo Soomaali ay leedahay ama Soomaali da'yarteeda wax baratay ay ayagu leeyihiin intay soo saaraan wadanka lagu hogaamiyo oo aan ka imaanin wadamo shisheeye waa taas Saciid mar labaad ayaan ku mahad celinaynaa waxaan filayaa dad badan inay barnaamijkan ka faa'iideysan doonaan daawadayaalkaasina wuxuu ahaa aqoonyahan Saciid Sama Ibrahim oo loo yaqaano Google waxaana barnaamijkeeni daadihinayay anigoo ah Maxamed ila soco dhanka kaamirada iyo farsamadana waa Madaale inta barnaamij noocan oo kala ku kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo